السلام الله عليكم halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta socdaal indhayn ku tagay xafiiska qasriga madaxtooyada iyo farmaajo oo halkaasi kula kulmay qabanqaabada xil wareejinta oo durba bilaabatay gudina loo magacaabay Fahad Yaasin oo la soo warinayo inuu socdaal degdeg ah ugu baxsaday wadanka Qatar asagoo magangelyo ka helay dalkaasi Saciid Cabdullaahi Deni oo qorsheynaya laba tilaabo oo degdeg ah oo ka qaado madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash iyo baarlamaanka Puntland oo la abaabulayo si ay xilka uga tuuraan ciidamada wadanka Burundi oo dib u wareegay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaynu ku falaqay doonaa warka dunida TV oo diyaar garooba hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato ama ogaanina subscribe saarato YouTube kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya habeenko waxa uu socdaal ku tagay madaxtooyada si uu qiimeyn iyo indhayn ugu soo sameeyo madaxtooyada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa halkaasi ku qaabilay madaxweynaha wali xafiiska jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isxog wareysi oo ay yeesheen ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha Soomaaliya sidii loo sii dardargelin lahaa iyo xil wareejinta madaxweynihii horeete ee Soomaaliya uu sameeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddi uu hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kale ayaa loo magacaabay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo shaqeeyaan xil wareejinta waxaana soconaya dadaaladii ugu dambeysay oo ay ku doonayaan xil wareejinta iyo sidoo kale in dalka gabi ahaantiisba ay la wareegto dawladdu isla markaasna la qaado tilaabooyin lagu horumarinayo howlaha guud ee wadanka Farmaajo waxa uu sheegay inuu bogaadinayo madaxweynaha cusub ee la doortay asagoo ballan qaaday inuu garab istaag xoogan u muujin doono madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud markuu xilka la wareego maalmo kadib wuxuu magacaabi doonaa mas'uuliyiinta kala shaqeyn doona howlaha hortaminta ee dalka sida madaxtooyada qaybaha ciidamada kadibna wuxuu magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka oo uu gabi ahaanba doonayo in shaqada dawladda uu dhaqaajiyo sidaynu ku helayno ila wareedyo muhiim ah agaasimihii horeete hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa lagu soo waramayaa inuu u baxsaday dalka Qatar Fahad Yaasin oo ku guuldareystay dhammaan himilooyinkiisii doorashada waxa la sheegay inuu dalka iskaga baxsanay asagoo ogaaday in ay jirto dacwad maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida loo gudbiyay taasoo ku aadan kiiska Ikraan Tahleel ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in Fahad Yaasin uu jartay tigidh gaar ahaan dalka Qatar asagoo halkaasi u socdaalay wararku waxay intaasi ku darayaan in dawladda Qatar ay siisay magangelyo siyaasadeed oo uu halkaasi ku noolaan doono ilaa iyo inta wax iska bedelayaan xaalka Soomaaliya Fahad wuxuu aaminsan yahay in dacwad lagu soo oogayo taasoo qatar gelin karta noloshiisa maadaama loo haysto dambiyo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda bini'aadanka weytaanka Ikraan Tahleel iyo arrimo kale Fahad ayaa la sheegay in dalkaasi Qatar uu aaday wax yar ka hor intii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu san bilaabay dhaqdhaqaaqyadiisa dhinaca la wareegitaanka xilka madaxweynaha isla markaasna la isku diyaarinayo munaasabadda xil wareejinta sidoo kale waxa la sheegay in qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee la shaqeynaysa Fahad ay aadeen dalalka dibadda iyagoo raadsaday wadamo ay magangelyo ka helaan si ay ugu noolaadaan siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil ciidan ayaa dalka iskaga tagay saacadihii ugu dambeysay kuwaas oo aaminsan in hadii uu xukunka la wareego si rasmi ah u hoosgeeyo laamihiisa kala duwan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud inuu qaadi doono tilaabooyin argosiya ama in dacwada lagu soo ogo dadka loo og yahay inay dambiyo ku eedeysan yihiin dhammaan xibnaha bilaabay inay dalka iskaga baxsadaan waxa la sheegay in aysan la kulmin ishoristaaga ku saabsan in ay ka baxaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde Axmed Karaash iminka
Axmed Karaash oo markii Dani uu aaday Muqdisho la sheegay inuu dhabar jabin ku sameeyay ayaa hadda ka walwalsan mustaqbalkiisa siyaasadda. Dani wuxuu qorsheynayaa maalmo kooban gudahooda inuu dib ugu laabto magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland kadibna wuxuu bilaabi doonaa tillaabooyin culculus oo uu doonayo inuu meesha kaga saaro Axmed Karaash. Siciid Cabdullaahi Dani tillaabadiisa ugu horeysa ee uu doonayo waa inuu karkaarka siyaasadda weydaariyo. Siciid Cabdullaahi Dani oo wareegtooyin isxiga soo saaray asagoo olole ku jira magaalada Muqdisho. Dani waxa uu durbaba bilaabay in baarlamaanka uu dedejiyo kulankooda asagoo kala shaqeynaya guddoonka baarlamaanka inay kulmaan oo ay xilka ka tuuraan. Dani ayaa la sheegay in xildhibaanada baarlamaanka oo kulankooda ugu horeeyo uu dhici doono bisha Juun loo maleynayo in la soo hormariyo fulitaankooda isla markaasna la soo gabagabeeyo waayaha xukunka Axmed Karaash. Dani waxa la aaminsan yahay in inta badan baarlamaanka Puntland ay asaga cabiidin u yihiin oo ay aaminsan yihiin wax walba oo kaga yimaada dhankiisa inay fuliyaan. Tillaabada uu qaadi doono Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale inuu doonayo inuu burburiyo koox uu arko inay yihiin kuwa dhabar jabin xoogan ku sameeyay markuu Muqdisho aaday, kuwaas oo abaabulan doonayana in la sameeyo guul darro kaseeto Dani uu ku guul dareysan karo xilka madaxweynaha. waxaa la sheegay in kooxdaasi ay dhabar jabisay xildhibaanadii heer federaal iyo siyaasiyiintii iyadoo warar iyo macluumaadyo aynu helay ay sheegayaan in xildhibaano badan oo Puntland laga soo saaray loo weeciyay dhinaca Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. siyaasiyiinta kaleete oo sida weyn uu doonayay Siciid Cabdullaahi Dani inuu ka qaado tillaabooyinka waxaa ka mid ah Saacdiye Salaah Samatar oo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka, Maxamed Cabdiraxmaan Faroole, Cali Xirsi Timcade, Cabdullaahi Bidaan Warsame, Sareedo Maxamed Cabdi iyo sidoo kale xildhibaan Cali Xoosh oo dhammaantoodba Siciid Cabdullaahi Dani la sheegay fashilka soo gaaray inay qayb ka noqdeen kadib markii ay siyaasado kala duwan ay ku hardiyeen. si kastaba ha ahaatee Siciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa in tillaabooyinka uu qaado ay meesha ka saaraan dhammaan dhaqdhaqaaqyadii uga dambeeyay deegaanada Puntland asagoo cagta marin doona wareegtooyinkii uu hore u soo saaray Karaash. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib loo wareegay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. deegaankaas oo horey ay u qabsadeen ururka Al-Shabaab uguna soo weerareen ciidamada dalka Burundi waxaa dib loo wareegay iminka ciidamada Burundi ee qaybta ka ADMIS iyo sidoo kale kuwa dowladda Soomaaliya. xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in ay ku sugan yihiin oo ay ammaanka deegaankaasi ayagu sugayaan. warka ka daawanaysan Dunida TV waaga inta sidaas iyo nabadgelyo.